Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tacaala kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa alaaba markasta waxaan ka hadalnaa maxaa ka cusub ciyaaraha maanta. Ciyaarihii idil waxyaabihii isboortiska ugu waaweynaa maanta waxaa ka mid ciyaartoygii labaad oo toddobaad gudihiisa ka tagaya kooxda kubadda cagta Barcelona. Maxay tahay sababta? Iyo wafdi ka socda kooxda kubadda cagta AC Milan oo soo gaaray maanta wadanka Isbaanishka. Dhinaca kale Ole Gunnar Solskjaer oo ku qaaday weerar afka ciyaaryahan Robin van Persie. Waxyaabaha kale aad ku maqli doontaana waxaa ka mid Ernesto Valverde iyo Zinedine Zidane oo soo bandhigay shaxaha ay caawa ku soo bandhigayaan kulamada ay la ciyaarayaan kooxaha kale ee horyaalka La Liga. Dhinaca kale USA vs Iran oo carqalad adag dhex taagan ayaa mushkilad ka dhalatay ciyaar la dheeli lahaa oo isboortiska ah oo u baaqatay durba dagaaladii ay bilaabi doonaan. Maxay tahay sababtaas? Waxyaabaha kale aad ku maqli doontaan waan sii qarinayaa. Maar kale kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo aad nooga barateen maalin kastaba marka laga reebo maalinimada Jimcaha. Balse markaan dhinaca iyo Barcelona, dadka qaar ayaa isweydiinayo xidigee waa xidigii labaad oo ka tagay kooxda kubadda cagta Barcelona. Barcelona ayaa wiigan dhexdiisa ka tagay ciyaaryahanka caanka ah khadka dhexe ka dheelaya Carlos Alonso oo aastay kooxda kubadda cagta Real Betis. Balse markaan difaaca keedka ku bararay ee lagu magacaabo Tudiba ay kasoo iibsatay mar horeba kooxda Toulouse ee ka dhashay wadanka France ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta AC Milan. Sida wargeyska Mirror soo qortay ayaa wafdi ka socdo gelinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Barcelona si ay u dhameystiraan saxiixa caanka ah ee Tudiba ayaa isna afkiisa ku qirtay inuuna boos joogto ah ku haysan ligada caanka ee Camp Nou, balse uu doonayo meel uu boos joogto ah ka helo. AC Milan ayaa dhanka kale shaacisay inay kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta Juventus xidiga caanka ah ee difaaca ka dheelaya Tudiba. AC Milan iyo Juventus ayaa bilihii ugu dambeeyay ku wada tartamaya xidiga caanka ah reer Faransa ee Tudiba. Mar kale Tudiba ayaa sheegaya inuu kubadda cagta mar hore rajo ka lahaa, balse rajadiisa ay dishay kooxda kubadda cagta Barcelona. Laakiin wuxuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo meel uu ka helayo boos joogto ah sida kooxaha AC Milan iyo Juventus, balse waxaa ku guuleystay kooxda kubadda cagta AC Milan. Barcelona waxaa wiigan dhexdiisa ka tagay ciyaaryahan Carlos Alonso oo si amaah ugu biiray kooxda kubadda cagta Real Betis oo ka dhashay isla horyaalka La Liga. Xidiga kalena waxay doonayaan inay ka tagaan sida Arturo Vidal oo isku afgaran waayeen kooxda Barcelona. Gunooyin iyo mushaaraad ay ka jarteen kooxda kubadda cagta Barcelona xilli Arturo Vidal uu dacwo ka furayo magaalada Barcelona. Arturo Vidal ayaa dhanka kale sheegay inuu boos joogto ah ku haysan ligada Camp Nou, waxa uuna doonayaa inuu iskaga dhaqaaqo. Dhinaca kale tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa si adag ugu jawaabay xidigii hore ee kooxaha Manchester United iyo Arsenal Robin van Persie. Waxaan wada ognahay ciyaaryahan Robin van Persie wiigii hore inuu hadallo kulul ku dhahay macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda kubadda cagta Manchester ayaa guuldaro 2-0 ka soo gaartay kooxda kubadda cagta Arsenal, balse ciyaartoygii hore ee Manchester iyo Arsenal Robin van Persie oo xilliga ciyaarta dhaceysay fadhiyay stuudiyaha caanka ama telefishinka caanka BT Sports oo falanqeeye ka ahaa ciyaartaas ayaa si kulul uga hadlay. Waxa uuna yiri
Ole Gunnar Solskjaer waa nin doqon ah maxaa yeelay iyadoo oo laga badinayo kooxdiisa ayuu iska qoslayaa. Dhanka kale Ole Gunnar Solskjaer ayaana xidigaha kooxdiisa ay ka amar qaadanin, maxaa yeelay taas waxaan ka bogan karnaa xidigaha khadka dhex ka dhiila oona lahayn orod iyo difaacasho fiican sida ciyaaryahan Fred iyo Nemanja Matic oo si caluuqnimo khadka dhex ugu ciyaaraan. Balse taa waxaa ka jawaabay tababare Ole Gunnar Solskjaer oo galinkii dambe maanta dhahay anigu ma aqaano ninka keliya ee soo aflagaadeeyay, balse waxaan aqaanaa inuu xiran jiray lambarka aan u xiran jiray kooxda kubadda cagta Manchester iyo keliya inuu u dheeli jiray kooxda kubadda cagta Manchester United, balse aqoon dheeraad uma lihi. Taasna waxay qalad ku tahay inuu aniga ila hadlo. Waa mid kale ee dadka la yaabeen wararka ay isla dhex marayaan Ole Gunnar Solskjaer iyo Robin van Persie. Tan kale ee dadka isweydiinayaan ayaa ma uu soo jawaabi doonaa mar kale ciyaaryahaankii hore ee kooxaha Manchester United iyo Arsenal Robin van Persie. Dhinaca kale tababarayaasha kale ah Enzo Valverde iyo Zinedine Zidane ayaa soo saaray liiska 19 ciyaartooy ee kala hortagayaan kulamada caawa ay la kala dheelayaan kooxaha Espanyol iyo Getafe. Fasaxii dheeraad ee gaalada ayay kasoo laabteen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyagoo loolan adag ka dhexeeyo, maxaa yeelay wareegii koowaad ayaa dhammaaday. Kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo 2 dhibcood oo kaliya ku hayso hogaaminta horyaalka La Liga, xilli ay kooxda kubadda cagta Real Madrid iska lumisay 2 dhibcood markii ay barbaro gool la'aan la dhaafi weysay kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao oo ka dhashay horyaalka Spanish Liga. balse caawa shaaxaha 19 ciyaartooy ayay soo kala saareen tababarayaasha kale ah Enzo Valverde iyo Zinedine Zidane. Tababare Enzo Valverde ayaa soo xushtay goolahayaasha Neto, Inaki Bene, halka Ter Stegen oo ciyaartan caawa dhaawac ku sheegayo. Difaacyadana Nelson Semedo, Junior Firpo, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Clemente Lenglet iyo ciyaaryahanka caanka Sergio Roberto iyo Gerard Piqué, halka khadka dhexe uu soo xustay Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arturo Vidal iyo Ivan Rakitic, xilli uu Artur Melo dhaawac ku sheegaya ciyaartan. Weerarkan uu soo xustay xidigaha kale ah Messi, Luis Alberto Suarez, Antonio Griezmann, Lucas Perez iyo xidiga lagu magacaabo Ansu Fati oo dhaawac laga sheegay asana uu soo watay. Dhinaca kale tababare Zinedine Zidane ayaa 19 ciyaartooy soo kala shaaciyay goolahayaasha Thibaut Courtois, Alvaro Oriol iyo Thibaut Altuve, goolahayaha da'yarta ah. Difaacadana uu soo xustay Nacho iyo ciyaaryahanka caanka Ferland Mendy iyo ciyaaryahanka caanka Nacho Fernandes iyo ciyaaryahanka caanka Rafael Varane, Alvaro Odriozola, Dani Carvajal iyo xidiga caanka Eder Militao. balse waxaa sheegaya ciyaartan dhaawac ku sheegaya ama ganaax xidiga caanka Sergio Ramos oo kabtaanka Real Madrid ah, xilli uu khadka dhaxan u soo xustay Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde iyo Toni Kroos. Isco weerarkan uu soo xustay Karim Benzema, Luka Jovic, Vinicius Junior, Rodrigo iyo xidiga caanka Gareth Bale. waxaan wada sugnaa caawa kulamada Real Madrid iyo Getafe, Barcelona iyo Espanyol. dhinaca kale Iran vs Mareykanka, xiisada ka dhalatay shalay oo isla markiiba dhibaato ku noqotay qayb ka mid ah isboortiska. waxaa la shaaciyay xulka qaranka wadanka Mareykanka oo safar ku tagi lahaa wadamada bariga Aasiya oo baaqday, maxaa yeelay waxaa shalay dib ku dhacay wadanka Iran. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa amray in la dilo Genaraal Suleiman oo ka tirsan ciidamada wadanka Iran, kaas oo ku sugnaa xilligii la dilayay wadanka Ciraaq caasimadda Baghdad, gaar ahaan garoonka Baghdad Airport, xilli
waddanka Iiraan ay jawaab adag ka siiyeen waddanka Mareykanka oo ayna sheegeen in ay ka aargoosan doonaan waxay rabtaba ha ahaatee. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan waddanka Ciraaq inay iskaga soo laabtaan, halka wadamada u dhow muwaadiniinta ku suganna uu sheegay inay digtoonaadaan maxaa yeelay waxaa bilaaban doono dagaalkii u dhexeeyay waddanka Iiraan iyo Mareykanka. Dad badan ayaa isweydiiyey isboortiska maxay carqalad ku noqon doontaa dagaalkaas weyn haddii uu bilaawdo, balse ninka ugu madax ka keensan caalamka ee madaxweyne Donald Trump oo keligii taliye iska dhigaya ayaa shalay dhibkaas geystay. Khubaro waddanka Mareykanka ayaa la yaaban dhibaatada uu geystay madaxweyne Donald Trump, mana dhicin in Mareykanka uu iska baxo uu iska dilo jenaraal ka tirsan wadamada caalamiga ah sida waddanka Iiraan, balse madaxweyne Rouhani oo waddanka Iiraan ayaa ka xumaaday arrintan sababtoo ah dilka loo geystay jenaraalka ayaa ah jenaraal aad iyo aad u bilaarsan. Mareykanka ayaa dilka ku geystay diyaaradaha caanka loo yaqaan ee Drone-ska. Halkaan waxaan kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkii ciyaaraha maanta. Fadlan please waxaan kaa codsanayaa channelkan subscribe soo saar, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro wax kasta oo aan soo gelino. Kala soco barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan.